وعن أو ناكسن داودياشا قيمة قدرنت مدنه وكسو دوادا برنامج قارة أو كسابسن حفلة لغوسوغوتيني هالوضينا كترسن وزارة أريمها الدبادة الصومالية توبرك ونماذي مقالة الرياض دلك السعودية عربية وانا داوشا وعن بسم الله الرحمن الرحيم مدنيالي مروين متشرفتا قيمة وقدرنت مدن كسو قيب كشي حفلة عاوة ويسوق من قابيين جالية الصومالية iyo safaarada Soomaaliya magaalada Riyadh laguna maamuusayo arday Soomaaliyeed oo halkaan ay ku soo gabagabeystay seminar waxbarasho kana socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda gobolka Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin ugu horeyntii waxaan ku furan doonaa aayado Qur'aan ah oo inoo marin doono Sayyid Ali Sheikh Mohammed من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قدومي كحوين كجالية الصومالية وكسو جديد دونا دورك جالية الصومالية كوادا برنامج كان يسوق كوكبي قدومي كحوين كجالية الصومالية وكسو جديد دونا دورك جالية الصومالية كوادا برنامج كان يسوق كوكبي مركب الرئيسة إله بامهات إسكالي إلهي جنوس ولقلي إن نعاوها لكن أسكون مانو وأن كجاها بالموح السجر رالي جلينية ومدينا رالي جلينية طوب بلاد كهر وحى مجالنا الرياض نوصل بوضي بالينيرو كسرت وزارة الرياض دبدا أو تبطر إيمي ونصور ويني ونصبرني عاونا وحاسو كبكبودي تبطركي بسعودي يونا وحاي كلابنيان dalkii hooyo waan ka xunaynay naga tagaan laakiin isla marhaantaana waxaan kula dardaarmaynaa wixii ay barteen inay ummadda uga faa'iideeyaan inay ka faa'iideystaan wixii ay barteen inay daacad u noqdaan dalkooda iyo dadkooda inay daacad u noqdaan madaxdooda inay ka taliyaan wixii maslaxa ugu jirto ummadda Soomaaliyeed walaalkii waa mahadsan yahay aayadihii uu akhrinayay kuwii maqlo oo ku anfaca Allah naga yeelo waxaa ku koobnaa wixii aadaabta islaamka oo dhan dadka ilaahay uu kula taliyay marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan noqono kuwii maqla oo sida ugu wanaagsan ugu dhaqma waxaan ugu xigtay heestii qaranka oo aanu qaadnay waxayna soo xasuusinaysaa waqti ummadda Soomaaliyeed ay mid ahayd dad siman ay ahaayeen dad is-ixtiraama oo iska dambeeya ay ahaayeen burbur baa soo dhexgalay qulubtooda ayaa kala tagtay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qulubtooda kuwii ay isku soo noqoto in ilaahay naga yeelo dalkeennana nabad nooga dhigo barwaaqada asagay gacantiisa ku jirtaa oo naga kaaftoonsiiyo gacno shisheeye kuwa isku duuban oo isku filan ilaahay naga dhigo waxa weeye waxaan rabnaa inaan bilaabno scholarship aan ku dhiirigelinayno ardada ka soo baxaysa dugsiyada sare ee dalka Soomaaliya iyo xerooyinka qaxootiga waxaan anigu ballan qaaday qof ahaan inaan hal qof sponsorshipkiisa bixiyo qofka ugu horeeya waxay noogu xigi doonaan quraan ay soo jeedin doonto Faadumo Dhagaas in kastan ciisho ma ciintenu cadow gubay in
inkastan ciishoona ciideennu cadowgu gubay shisheeyana soo ciriirshona kala cadibay haddana caalamkeeni calahamku ka taagan yahay isuu la gurguranaha ya karahama culus waxaana ku ceeshinaba hadan ciriir lahayn halkii sayidkii cabirahay baa dib loogu camiri insha allahu iyo sideeni horaan ahaan dowladu way dadaasho dalkii bay noogu qabteen dowladu way dadaasho dalkii bay noogu qabteen dowladu way dadaasho difaac bay noogu galeen dowladu way dadaasho qalbigeenu waa ku taagay calaamkii duugoobay duufanta lagu furfuray inuu diirsamay mataaba idinka rogan dunidu waanaeganahay soo danaga magaalin haddaynay dirin dhigeyaygu diidi kara intaasan diri hirshayo qaran dinuma dhacay oo dowlada qabate qalbigina yahay ka bixin alloo yaa tahayo dor kale ugu shuba urbaayidulooda dalkiiba ku noqonaa urbaayidulooda dalkiiba ku noqon lahaa shidaalka daboolan dahanka rogi lahaa nimcadayduuga baha sida daalan lahayn turbigu way daweeya dirihin baanu dhibi lahaa damaashaad iyo dalxiisba ku jiri lahaa وهاجاك وحاي نوبو حيجي دونا مجا أربعة من قهد دونا هو اللي هذا مجا عيسى حسين شيخ عبد السلام حسين شيخ عبد السلام كسر هو مكان لا إله إلا الله تكلم الكهرباء كم سكين كينه كما أنا نمان الوضع أنا قال لنا هاي والإله المسؤول كليه أنت أكيد محفلة يا وحي هذا الأمر بدوي لكن دام إنك نالسي دوك ليري وحين أديك أقطع عنك هلا أنا قال وحلنا كل أدبر ما ستين مكهرة أنا كسر بالله بيمهد علمتها سفارة iyo jaaliyada oo isku duuban sida wanaagsan oo ay nagu soo dhaweeyeen dalkan Sacuudiga gaar ahaan magaalada Riyaad waxaan leenahay dad wanaagsan baa noo jooga halkan mahad celinta kadib wixii hadal hore baa loo yiri oo naga dowladda iyo mas'uuliyiin baa meesha joogay iyo safaaradda iyo wixii oo idil dalkan kulay haddii aan ka warbixino markaan nimid ilaa iyo hadda waxbarashaan u nimid oo tababara tababarkan waxaan filayaa hadda inaan caawa noo soo gabagaboobay jaaliyadana markii hore ay noo samaysay in maxaan ku iraadaa soo dhaweyn ama qada sharaf ay noo samaysay nagala soo qayb gashay nagu dhiirigelisay inaan information iyo macluumaad aan naga siisay dalkan iyo sida wax loo joogay iyo qaabka waxbarashada ay tahay wax aad loogu farxo waaye in intaanu jaaliyada ay halkaan noo joogto iyo in ka badan oo iyagana aan soo xaadirin waxaan leenahay kulligiin waa mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynaynaa hadda agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda gobolka Soomaaliya Yuusuf Cali Sow kusoo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha jaaliyadda marka soo aftakaro wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda iyo salaamta gudoomiye waxaa sharaf noo ah inaan kala soo qayb galno munaasabadan gaaban ee lagu sagootinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka u yimid dalka Soomaaliya waxaa sharaf noo ah inaan kala soo qayb galno munaasabadan aad ku sagootinaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbarashada diblomaasiyadda Soomaaliyeed waxbarashada mudafada Sacuudiga oo halkan wax ku baranayay waxaa sharaf noo ah inaan marti u ahayn dhalinyarada u ahaayeen
muddadii halkaan joogay dowladda Sacuudiga aan saaxiib ka nahay oo runtii marar badan Soomaaliya caadi u yahay uga arsteeyo mar walbaba markii baahidu jirto martaas midaas intaa waxaa la yidhaha watii u dambeeya waxbarashadan waxbarasho muhiim ay ahayd oo runtii badan ardaydu ka faa'iidaysteen kamana aysan faa'iidaysan aqoon kaliya waxay ka faa'iidaysteen saaxiibnimo iyo isbarasho macallimiinta ay barteen maamulkii bay barteen dowladda Sacuudiga waxay mas-uuliyiinta ay qayb badan ay barteen waxay abuureen saaxiibnimo waa ku mahadsantahay dowladda Sacuudiga waxqabadkeeda oo mar walba isdabajooga ummadda Soomaaliyeed la garab taagan waxa kale oo sharaf mudan in halkaan loo mahadcelino laguna salaamayay ambaashadoorka safaaradda Soomaaliya Cabdulla Maxamed oo runtii door weyn ka qaatay soo ku hirgeli lahay tababarkan mas-uuliyad badan ka sare oo ka socotaa safaaradda Soomaaliya kuna hadli doontaa magaca safaaradda Abshir Warsame Diirshe kusoo dhawaada waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa haddaan nahay safaaradda jaariyadda Riyaad sida ay mar walba heeganka ugu tahay oo ay uga qayb qaadato waxyaalaha dhaca ma ahan xafladahan kaliya hase ahaatee waxay ka qayb qaataan wax badan oo jaariyadda ku yimaada oo duruufaha jaariyadda ka mid ayay xidhiyaan safaaradda ayagoo ka kaashanaya taasna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin arrimahan kale oo munaasibooyinkana haddee taas يعني مرقاتي وحوقا سيدا يوليغان يميرها يكوليغان وميرا آدي آد وصفية يعني ظروف هنرقنهي iyo shaqada iyo waxaan ka laga qaato saasoo ay tahay iyo safaarad iyo duruufteeda aan aad iyo aad ku xiriban ku saacidi karin xagga dhaqaalaha ayay dadaalaan oo si fiican iyo sidii ay lagu filayay si ka wanaagsan bay u qabtaan wax walba marka aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin يعني waxyaalaha waaweyn oo ka mid ah haddaan soo qaato dhakhaatiirtii iyo dadkii dhibaatada ku dhaceen waagii shaago waa la ogaa siday uga qayb qaateen had iyo jeer waxay ahaayeen si joogtaa usoo siyaarta si dadku waxay u baahan yihiin u sameeya isla markaasna markii u dambeysay aad iyo aad bay uga gacan qabteen oo xagga dhaqaalaha aad bay uga saacideen haddana ardada markay yimaadeen xaflad bay u dhigeen soo dhaweyn ah aad bay ugu mahadsan yihiin ardadana waxaa weeye si fiican baa nasiibkood maadaama ay yihiin dadkii ugu horeeyey oo tababar noocaan loogu sameeyey Sacuudi Carabiya nasiibkooda waxay la kulmeen soo dhaweyn fiican oo markay jaaliyadda soo dhaweysay kadib waxaa dhowrkeed soo dhaweeyey dowladda Sacuudiga xataa asbuucii hadda soo dhaafay waxaa soo dhaweeyey oo xafiiskiisa ku qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ninka ah wakiil wasaare Soomaaliya u taqaano xoghaye joogto asaga dalbaday inuu la kulmo waana la kulmay si fiican buuna ugu hambalyeeyey say wax u baranayeen iyo sidai u wanaagsanayeen wuuna u sheegay warbixinta loo keenay dadaalka ay sameeyeen wuxuuna ku guubaabiyey inay wixii ay barteen iyo dadaalkaas ay sameeyeen dadkoodii u gudbiyaan maadaama ay dhalinyarada dad wax u barta ay yihiin marka taas kadib waxaa ugu xigay oo shalay loo sameeyey xaflad maxad u sameeyey oo safiirka Soomaalida iyo madaxdoo dhan uu kasoo qayb galeen taasna xaflad weyn bay ahayd si fiican baa lagu soo gudbiyey gudoomiyaha jaaliyadda haweenka Riyaad oo ku hadli doonta Faadimo Dhaga kusoo bismillaahi rahmaani rahiim wixii la dhihi jiray waa la yiri aniguna waan sii raacinayaaye wiilashayada aad baan ugu hambalyeynayaa tacliinta ay dhammaysteen si sharafta leh ay wadankii xaramka ku yaalla ay ku dhammaysteen ayagoo niyadoodu saafi u tahay oo faraxsana maanta ay ku socdaan wadanka ayagii oo anigu sida aan rajaysanahay farxad ah oo wadanka ayagii nabadoo yahay insha allah inta haddana wasi dhamaystirmaysa marka waxaan ka codsanayaa wiilashayadii haddaa ay wax noo barteen dalkii iyo dadkii inay wax noogu qabtaan gurha noo soo yeerto idinkana waxay idin rajaynayaa inaad wadankii aad wax ka qabataan oo tacliintii aad barateen wax noogu soo saartaan waxaanu siin doonaa kelmadda ugu dambeysa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya ee magaalada Riyaad injineer Abuka
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد عليكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركورة ولا لهن ماشي من توبرك مجال الرياض إن قطعان وهالودينا وزارة الأرماء تبدأ سيدنا مركورة دي كشير من جالية الرياض وجالية كلية ومدة سنة 10 سنة كلاماتنا تطبق عليه ودسم وأنت بوك كجري وطن كأي تبدأ هذا عن خلاف الحجر ومنطقة ووطن الجعل وصومال الجعل وعنكوا تاسع يعني كشير عاو وحن جعلنا مدة بدنا لجوتنا لك وقتنا دمن وحن يجيكوا سلوتنا وحوي بس أبرتين إن سيدات أبرتين وفلسان إن صومال إنه وحول بكور مرسان إن دعك أدرس فلسان سقير له وحد برتين ودمنا وادارتين سعودية نظامية كتير يدوك سيده وشو خلاص وعطوا إن صوماليا هؤلاء ما جاء كنقطهم تان meel kasta noqoto inaad maaragtay si hufan aad hawsha u qaadataan anagana mar rabo waqtiga oo dhammaad inaan hadalkii ku dhalin waxaan leeyahay walaalayaal xiriirkeenu inta ku dhammaan caawo inaanu mar walba wada xiriirno wixii howlaha ugu baahantiin waddanka sacuudiga annagana idin garab istaagna annagana waxaan ugu baahnaa soomaaliya inaad garab istaagtaan inaad hawshiina kasoo dhalaashaan ayaan idinku baahnayaa inaad mar walbaba aad noqotaan tusaale dad سعودي وحكسو برتي إن أمير والله كم وقتان ساسا إن هذه قوانا وعن ليه ولا الجرا. داوديال أنت أيان نكسو كبجوينا برنامج كاتني أنت أنو دي بقول كل متونا واحد ذيك جتجي الناس إذا أيوه نبت كليو أنا جواها أحمد إسماعيل محمود أحمد عرب تلفزيون كقرن كصوماليات رياض دلك سعودي أرابيا. أساقي لطولي لنفسك وحيدك المهرسة يا إسماقل أمورك